gaashaan dhexe Axmed Cabdi Cali waxaan ahay taliyaha guutada 4 Oktoobar sida hadda waxaan rabaa in warbixin yar ka dhiibo aadan iyo Ibrahim Amira sida qaabka ay noogu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay horta Ibrahim wuxuu ahaa jabhadaha nala diray jabhad kamid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddo aan dhex maray dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka jilimarka ilaa iyo lambar 6 aan isaga daba tagno cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaas dhex maray kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah yaa waxa ku gaaray jab badan iyo cabsi badan ay ku gashay sidaa darteed markii jabeen kadib Ibrahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan xoogga dadka Soomaaliyeed oo saan looga soo horjeeda waa ciidankii xaq u dirka ahaa ee lagu yaqaan dowladnimada waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta kamid ah soo xiriiriyay kadibna sidaas telefoonka lagu keenay waxaan soo dhawaada dowladdiini waan soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta kadib ayay go'aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay janaale afaafka hore janaale ayay ka soo galeen waan soo dhaweynay hadee dowladda hore u ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliya hore u ballan qaaday wixii soo gala inuu abaalmarin siinayo oo ku soo dhaweynayo hore loo ballan qaaday cafisna la siinayo hadee dowladda cafiskeena waxaan is leeyahay waa u diyaar iyo wixii loogu tala galay kuwa kale oo ka dambeeyana waxaan u baaqayaa inay soo dhiibaan dowladooda Soomaaliya isku soo dhiibaan yimaadaan dalkoodii walaalood u yimaadaan intii aan fursad ka faa'iideysanna waxaan ka qaadi doonaa tilaabada ku haboon insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo marka dana qadana waxaan gacanta ku haynaa muddo 8 bilood meelaha isku dhawaad waan gacanta ku haynaa magaaladan waa magaalo amniya waa magaalo bomba iyo bastoolad iyo amniyaad iyo wax aan laga aqoonin waa magaalo dadka shacabka iyo ciidanka is dhex galeen oo aad mataqaana la soo dhex galay waa magaalo amnigeeda hadda 100% oo sugan yahay hadda wax dhib ah iska jirin waxaan marqaato ah madaxweynaha Soomaaliya noogu yimid nala hoydo nala joogay wax badan magaaladaas marka waxaan ka sameeynay horumar badan ka sameeynay waxaan soo jiidanay shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dareensiinay wiilashoodii inaan nahay xoogga dadka Soomaaliyeed ayaga aan u adeegayno ayagana waxay aqbaleen inay wiilashoodii dadkeena yihiin nala shaqeeyaan cadow garab naga siiyaan hadee Ilaahay uu nagu guuleeyay magaas inaan aniga iyo shacabkii isku xashaneen in amni ka dhigano oo hadda maanta wax dhibaato ah adoo gacmo maran oo wax uu awooday meesha hartid aad markaa ka shaaxabi kartid soo wareegi kartid cadowgana oo u jirto masaafo ka badan 30 kilomitir ka badan ama 20 kilomitir ka badan aysan imaan karin marko safeta magaalada iyo tuulooyinka u dhow waxaan kaloo ka sameeynay inaan dadweynaha dhex galno hadda cadowga dhaqaaqiisana shacabka iyo dowladda isku duuban hadda isku duuban yihiin cadow meel ka soo galay ma jirto cadow meel ka soo galay ma jirto marka saasa marka saaf uga dhignay ilaa haddana gacanta ugu haynaa ilaa waxaan ka rajaynaynaa marka inaan goobaha kale u dhow iyo deegaanka gobolka Shabeellaha Hoosana inaan haas kale aan uga cirib tirno oon ka dhameystay